sariflayaasha dadweynaha danyarta ee ganacsatada ku dhaqan magaalada Burco ayaa qayladhan xoogan ka diray sicir bararka sarifka lacagaha qalaad oo saameyn ballaaran ku yeelatay kor u kaca ganacsiga miciishada walowse ay saameyn gaar ah ku sii yeelatay dadka danyarta ee ka ganacsada khudaarta iyo isku beddelka lacagta qalaad maraasaaka u kurgashay shabakada Arwanaag News ee xaruntiisa magaalada Burco isla markaana booqatay suuqyada ganacsiga kala duwan ee magaalada sida danyarta ka ganacsata khudaarta sarifleyda iyo ganacsatada miciishadaha si iibisa waxaana si isku mid uga qayladhaamiyeen sarifka lacagaha oo halkii ugu sareysay gaadhay kuna eedeeyay xukuumadda inay ka gaadhi weyday xal waarta sidoo kale waxay xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Siinaayo ugu baaqday in sida ugu dhaqsaha badan hoos loo dhigo sicir bararka lacagta qalaad waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad nafad ahmed diiriya oo reer gobolka reer Burco waxaan ku codsaynaa sicir bararka waa baahsan yahay dadku wuu baqtiyay miya magaalada dadku wuu baqtiyay marka waxa weeye madaxweyne Maxamed Axmed Siinaayo waxaan ku codsaynaa asaga dalka u taliyo doorano kursiga ku fadhiisan si degdeg ah wax nooga qabto oo kursiga waxa ku dhig ku maamulo dadka waxa ku dadka kala hogaamiyo kala horo dadka oo sicir bararka ka fadhiisan dadka oo waxa ku dadka xoolihi oo shaaburiga oo dadka xidhay oo wixii waxa ku sii doonu ka yeelay dadka oo dadku wuu xannibayay oo meel isku liita anigoo milga jaamaca waxaan iibiye muuska iyo cambaha aad buu noogu qaaliyahay aad buu noogu qaaliyahay waxa doorba marka hore kaash baa markaan ka hashayno doorba nalagu dhuftaa doolarkii isma dhawaadaan iyo kaashki aad bay noogu qaaltay abay kaceen oo way laablaabteen way kaceen xoog bay u kaceen goobta aynu joognaa waa ka kaceen dee badanaa way kaceenba marka waxaan ka hadlaynaa sicir bararkaas waxa weey lacagtu wax weyn oo tari weeday kaashkii baa hoos u dhacay doolarkii baa cirka maray dee dawladdu waxa ka qabatay way dulmayeen shicibku nalagu yeeshay kor bay noogu kacday dhagahan faraha gelinay carruurta baan iskuuladii ka bixin kari weynay maxaan sheegay aad iyo aad ayaan uga cabanaynaa sicir bararka aniga oo la yiraahdo iido warsamo way yaamare waka ayaan ka cabanayaa dadka kale darisaduna way la mid maxaan sheegay qaar bay igaba sii liita qaar baan waxba iska bixin karin qaar baan daba shidan karin qaar baa $100 loo diray reerkii 10 qof baa $100 loo soo diray aan maxaan sheegay bishii 15 la gaadhin wixii la miisku ka yaciyo qofkii $100 la haystay $50 buu ku noqday maxaad iibsaaday inta qofkii kiradii meesha iyo waxaanu cunaynay iyo doolarkii way kala bateen dad maatadu danyar baa jirta dad aan waxba haysan ma jira dad waqtiyeeyaa jira marka in ilaahay laga cabsado baan doonayaa in maxaan ku dhahay ilaahay la iska xidhaabaan doonayaa waa billaah waa magacayga Cabdilaahi waa sarifka waxaanu siinaa $100 $780 yaa gacanta kalena 800 buraa markaas sidaa dee sicir bararka waxa ugu wacan lacagtan Filibiinta la soo sameeyay dawladdu soo sameysay yaa isaawadeed bay bahalku sicir bararka u dhacay weligiiba ma gaadhin waxa lagu ceedeeyaa sariflayaashu iyaga bahalka rogrogabe wax sariflayaashu wuxuun bay deer shaqadoodun bay yaqaanaani waxba mar rogaantii badan sakada hoose ee maxana shibilka waxana diciifiyay doolarka wuxuu nagu diciifiyay sixirkaanu wax ku iibno shaygaanu iibno sixirkiisa doolarka ka sareeya markaanu xisaabtano isagaaba shayga ila naga soo siiyay doolarka naga siiyay markaanu kaash ku iibno kaba sareeya marka waxa doolarkaas 100% buu hoos noo dhigay raysan maanta jooga adduunka cidina waxba ka qaban mayso bacii waa arkaysaan dadka masaakiinta ah bacaha wax ku xiranayaan oo bacii waa la guray qarsoodi baan imika inta ku soo saaraa baqdin hareeraha iyagaanu eegaynaa Soomaaliland waxa la leeyahay waa dawlad oo waxbay dadka u qabanaysaa marka saameyn intee la doolarku ku yeeshay Soomaaliland wuxuu nagu yeeshay 810 buu maraya kadbada waxana laga siiyaa 60 iyo 7 dhaafin kari wayna meel madax ka sareeyo oo la salaaxa ma jirto Farax Abdullaah oo ka soo hadlayo gobolka Togdheer waxaan leeyahay miciisadii oo maanta aad iyo aad u qaaligarowday maadaama ay dadkii dan yarta ahaayeen ay aad iyo aad waxaan ku leeyahay dantoodii hoos u noqotay markii uu doorkiina aad ugu qaaligaroobay isla markaana aanay wax weyn aanay haysan hadii ay dadkii ay u haysteen ay tijaartii ay maanta heer gaadheen ay dadka ay cunaqabateeyaan madaxweynaha dalka waxaan u sheegaynaa inuu tijaartan horta marka hore uu sharci u sameeyo uu ku dibta wuxuu nagu hayaa doolarkan oo imika aan bariyahanba sidii gimbaartii noqday isla markaana waxaan ku leeyahay aad iyo aad si kacay sidii gimbaartii 800 buu imika marayaa waxaan ka cabadeena dadweynaha sharafta loo sheegadana inuu doolarkii dawladda dooni mayno doolarkii baa nagu ku xisay dawladda maxaa doonayna dadweynaha sharafta la baan codsaday
doolarkii ayaa nagu kacay waa ina maxaa ahayd doolarka sixir bararka naga jabisaan boqolkiiba 30 baa qasaara annagu waxaan nahay dadka dayarta ee wax baax musharka dadka wax iibiya ee magaalada Burco Togdheer dadka ugu daciifsan baa nahay ee maxay haytay wax iibiyaan ugu hooseeyo noloshooda aad iyo aad ugu hooseyso annagu dayar baa nahay dayar hadaan nahay waxaanu iibinaa qudaarta hadaan iibino waxaanu kala soo baxnaa nolol maalmeed maalintii laakiin waan kala soo bixi kari weynay oo kalma soo bixi karo waayo sababtoo ah doorkii baan u kacay sixir barar wixii aan sana iibsado oo wax ku bedesha shayga aan iibsanay ee imka qudaartaan soo iibsanay doorkii ba kacay wuu isbedelaya boqolkiiba 195 kor buu kacaya kaaba kamid ah hadaan ay qolada qudaarta dayarta magaalada ama ganacsada hoose ee masaakiinta annakaaba kamid ah guriyana iskibada dad baaba ku baqtay dadka aan biilashan loo soo dirin dad baaba ku baqtay guriyana oo loogama baahaya suuqa dhexdiisa annakaaba dadka baqtay kamid ah ee deemoone hadda kacay badna kici doonaan ee deynta lagu leeyahay cabashadani ku salaysan karukaca sarifka lacagta qalaad ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan xukuumaddu u saartay guddi ka soo tala bixisa karukaca sixir bararka lacagta qalaad Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Hadwanaag News magaalada Burco